xiisadda u dhaxaysa dadka aaminsan diinta Ortodogska Itoobiya ku nool ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay hoggaanka sare ee kaniisadaha looga aramiyay diinta Ortodogska. Diinta Ortodogsku waxa ay ka mid tahay diimaha ka jira dalkan Itoobiya, taas oo ay 3 meelood dadka ku nool Itoobiya ay hal meel rumaysan yihiin. qarniyo badan ayaa hogaamiyaasha diinta Ortodogsku ay fargelin siyaasadeed ku lahaayeen dowladihii ka arimin jiray dalkan, taasoo ka dhigtay in madaxda Itoobiya badankoodu noqdaan dad ka soo jeeda kuwa aaminsan diinta Kiristaanka ee Ortodogska. Isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya waxa uu keenay furfurnaansho dhanka diimaha, iyadoo hogaamiyaasha diimaha qaarkood ay baraarugeen kadibna waxay bilaabeen in dib loo eego xukunka raagay ee diimaha. Khilaafka hogaamiyaasha diinta Ortodogska ayaa salka ku haya madhabka ay aaminsan yihiin oo dadka qaarkood u arkaan inuu halis ku yahay jiritaankooda. Inta badan kaniisadaha iyo hogaamiyaasha diinta Ortodogska waxa gacanta ku hayay muddo dheer dad ka soo jeeda qoomiyadda Xabashida, hase yeeshee qaar ka mid ah qoomiyadaha Oromada oo aaminsan diinta Kiristaanka ee Ortodogska ayaa bilaabay kacdoon ay xilka kaga tuurayaan qaysaska iyo maamulada kaniisadaha looga aramiyay diinta Ortodogska, iyagoo dalbanaya in luqadooda ay ku bartaan diinta ay rumaysan yihiin. Taasina waxay keentay in qaysas badan bud iyo ulo lagaga saaro goobaha cibaadada ee kaniisadaha. Cabsi weyn ayaa soo wajahday maamulka sare ee kaniisadaha Itoobiya oo badan Axmaro kadib markii la doortay guddiyo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo matali doonta hoggaanka sare ee diinta Ortodogska, kuwaas oo horey loogu qasbay in laga bedelo diintooda iyo dhaqankooda. Axmaarada Kiristaanka Itoobiya ayaa ku andacoonaya in dowladdu ay faragelin ku hayso diinta, loona baahan yahay inay ka dhex baxdo kaalinta ay ku leedahay. geesta kale dowladda Itoobiya oo ka hadashay khilaafka diimaha ayaa sheegtay inay jiraan kooxo ku dhex dhuumanaya khilaafka soo kala dhexgalay maamulka kaniisadaha, kuwaasoo khalkhal abuuraya. dowladda oo war-saxaafadeed kala duwan soo saartay ayaa ka hadashay xiisadda cakran ee kaniisadaha dalka ka dhex aloosan. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kala gedisan oo ku hoos dhuumanaya arrimaha kaniisadaha, kuwaasoo la doonayo in lagu wiiqo dalka Itoobiya. dowladdu waxay xustay inay jiraan caddeymo muuqda oo lagu doonayo sidii rabshado iyo qulqulatooyin loo abuuri lahaa. maamulada deegaanada Itoobiya ayaa dhankooda ku baaqay inay hay'adaha amniga kala kaashan doonaan oo ay ka hortagi doonaan tallaabo kasta oo sharciga baalmarsan, waxayna guud ahaan shacabka ugu baaqeen inay arrintani ku taageeraan. guud ahaan guddiyada Oromada Ortodogska ayaa ka saaray qaysaska Xabashida magaalooyin badan oo ay ka arimin jireen qaysaska ka soo jeeda Axmaarada. dadaalo hordhac ah ayaa socda oo lagu doonayo in dib loo dhiso maamul cusub oo ay yeeshaan kaniisadaha Ortodogska Itoobiya, iyada oo la rabo in dhammaan xilka laga qaado hogaamiyaashii hore ee diinta Ortodogska u aramin jiray. wixii faahfaahin dheeraad ah halkan kala soco LVD.